الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى ومدنا حريص بضان سيدا استرادت دينك إسلامك وأدسو دجيي أمدان إنيك الدين لغطو ومد إلالين يا الدنيا أمدان إيا آخرة دبا wax kasto wanaago adduunyada ummaddu ay ku cizowdana waa amra wax kasto ay ku dulowdana waa ka reeba aakhirada waxa ummaddu ay ku libaanaydu amra wixii lagu qasaarayana waa ka diga waxa ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala uu amray ummadda adduunkana cizada u aakhirana lagu libaanana waxa kamida xishoodku waa sifo iyo dareen qofka qalbigiisa ku jira dareenkaas oo u diidaya waxyaalaha xunxun ee dadka saalixiinta iska ilaaliyaan inuu ku dhiirado sameeyo waxa u diidaya weeye waxyaalaha xunxun inuu ku dhiirado dareen u diidaya weeye ama waajibkii ilaahay saaray iyo xuquuqdii lagu lahaa inuu dayaco oo amarkii alle uu qaada diido waxa u diido weey qofka marka xishoonaya waxa xunna waa ka fogaanaya waxa xuquuqdaah ilaahay saarana waa ilaalinaya maxaa yeelay wuxuu aaminsan yahay oo rumaysan yahay khaaliqii abuuray oo nicamka korkiisa saaran kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon ugu nicmeeyay inuu daalacanayo kuma dhiire kara marka khaaliqii abuuray oo daalacanaya wixii uu amray inuu diido oo uu ka fariisto ama wixii uu ka reebay uu ku dhiirado sidaas daraadeeda xishoodku waa iimaanka nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam xadiis bukhari iyo muslim ay wariyeen min xadiis abi hurayra oo rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam الإيمان بضع وستون شعبة إيمانك هل قيب معها واللحدا يطور قيبات والحياء شعبة من الإيمان حشوتك نوحو كميدي هاي قيبهاس إيمانك سيدا سرادت قف كستا ومؤمن لربا إنو كددالو إيمانك سينو كرديو حشوتك سينو بطه oo wax kasta oo xun ee dadka saalixiinta ay ka dhowrsadaan uu ka dhowrsado xuquuqda ilaahay saaray xaqa alle ama xaqa adoomada ahna inuu dayaco waa inuu ka sariigto oo uu iska ilaaliyo bukhari iyo muslim waxay wariyeen xadiidka abdullah ibn umar ibn al-khattab nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam wuxuu arkay nin waaninaya قال ورنيو حشوتك يا كابتي حشوت بدمده wax walba waan ka xishoonay markaasuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam da'hu fa innal hayaa min al iiman warkaleexo warka celin xishoodka ka leexo xishoodku waa iimaanku kamidi iimaankuna waa miftaaxa jannada lagu galo iimaan la'aantuna waa sababka naarta sidaas daraadeeda xishoodku waa sababka jannada lagu galo xishood la'aantuna waa sababta naarta nabigeena sidaas u cadeeyay sallallahu alayhi wasallam xadiiska abu hurayra imaam tirmidhi soo saaray nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam al hayaa'u min al iiman wal iiman fil janna xishoodku waa iimaan dadka xishoodkaas ehelka u ee ahlul iimaan kana jannaday galayaan والبذاء من الجفاء حشود درada dadka xishoodka daran ee hadallada dadka saalixiinta ka dhowrsadaan iskaga hadla waxyaalaha xun ku hadla
ficilada iyo dhaqamada dadka saalixiinta oo iska ilaaliyaan ku dhiirada waa qalafsanaan iyo qayr daro qalafsanaanta iyo qayr daraduna naartay ahaato yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkaas qalafsan ee waxa weeyaan aan sariig talahayn waa dadka reeraha naarta waa reeraha naarta saas yiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam maadaama marka xishoodku iimaan uu yahay ogow oo iimaanka waa qofka waa uu ka tagaya markuu xishoodka ka tago ma kala harayaan waa israacayaan nabigeena sidaas yiri sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri al hayaa wal iimaan qurina fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al akhar wa rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam iimaanka iyo xishoodku isku xiray daad aragto qof xishoonaya sariiganaya ka qajilaya waxyaalaha xunxun iimaana ka buuxa waa qof iimaan ku jiro labadoodu way isku xiran yihiin mid marka la qaado oo qofka laga siiba kan kalena waa laga siibaya marka qofka marka xishoodka uu ka tago oo uu dhiirado oo xumaanta ku dhiirado oo hadallada xunxun ku dhiirado oo meelaha xun inuu istaago ku dhiirado oo ficilada xun ku dhiirado qofkaas waa inaad ogaataa iimaankiya laga siibo iimaanku maadaama uu shucab yahay in laga wada siibay waa dhacda oo aan waxba ku harin in qayb laga siibayna waa dhacda laakiin iimaana ka maqan qofkaas waa la hubaa waa qof iimaan laga qaatay saas darteeda goormaa qofku xumaanta ku dhiiradaa marka iimaanku ka tago marka xishoodku ka tago bukhaari wuxuu wariyay xadiidka cabdillah ibn mas'uud nabigeena sallallahu alayhi wasallam inuu yiri inna mimma atraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta waxa jira hadal qiimo badan oo anbiyadii hore laga dhaxlay oo ummaduhu ay kala dhaxleen ilaa uu ummadan soo gaaray waa maxay haddaadan xishoonayn waxaad rabto samee qofka sidiisa waxa ka celiya xumaanta oo uu isiraado war waxaanu laa'iq kuma ah hadalkaanu afkaaga uma habboona ficilkan inaad sameeydaa kuma habboona waa xishoodka marka xishoodku tago wax alla wuxuu doono qofku sameeyna markaasuu xumaanta ku dhiiranaya sidaas daraadeeda nabigeena sallallahu alayhi wasallam nina u yimid markaasuu yiri yaa rasuulullaahi awsini ii dardaaran rasuulka allah rasuulka ilaahay ii dardaaran nabigu wuxuu ku yiri أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك وعن كود دردارميا إن آب إله وينك حشوته سيدا قف صالحة من صالحة أو قرابة هذا صاد وحشوته وحلا وذا أقصوي هاي قفكم مركو فسحادة يو مركو كوبات انت فسادكو انتو سوينان ضدك الصالحين تحمانت واكلا حشونا caruurka markuu bilaaba toobakada sigaar inuu cabo madaxa inuu si qaab daran u jarto inuu dabagaab gashado waalidka waa iska qarina macallinka quraanka bare waa iska qarina dadka saalixiinta iyo saxaabadiis kulli waa iska qarina waa dhuumana sagoo sigaar dhuuqa haduu macallinkii ama aabe ama hooyo u jeedo waa tuura waa ku istaaga maxaa yeelay wali gangastar ma noqon iimaankii ma baabi'in qofkan waxba ku dambeeya xumaantina waa ku soxtay fasaad fiiriya waa qof saalix wuxuu ka xishoona nabigu markaa wuxuu ku yiri sida saalixaad aad wax xisho rabbi uga xisho ahadka ku daalacana oo ku abaal marina maahan qofkan saalixa waa allahna meel kasto joogto waa kugu arkaa ilaahay ka xisho oo mar kasto naftaadu damacdo xisho darada xumaanta waxaad ku fakartaa khaaliqii ku abuuray oo ku nicmeeyay waa ku daalacana seed ugu dhiire kartaa hortiisa inaad ku caasido saas darteeda nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay qofka zinaysanaya markuu zinaysanaya iimaanka waa laga siiba la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min qofka zaniga ma sinaysto asagoo mu'min ah waa laga siiba qofka qamrada abaya qamrada macba asagoo mu'mina waa laga siiba qofka dadka xoolahooda dhacaya ma dhaca asagoo mu'mina waa laga siiba iimaan laawo way iimaankiya siiban in lagu soo celi doono iyo in laga qaado doono ilaahay baa yaqaan marka iimaanku waa waxa qofka ka hortaagan khaaliqii abuuray inuu caasiyo
waajibaadka inuu dayaco waa waxa ka hortaagan saas daraadeed xishoodku yuusan kula noqon mas'ala fudud xishood darradu yay kula noqon dambi yar waa dhaqanka islaamka uu uga duwan yahay dhaqanada ummadda ibn Maajah wuxuu wariyay nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam inuu yiri inna likulli diinin khuluqan diin kasta dhaqan lagu yaqaanay leeyahay dhaqan u gaar ah leeyahay diin kastaaba wa inna khuluqal islaami al hayaa diintan islaamka dhaqanka lagu yaqaan waa xishood qofku inuu xishoodo ilaahi abuuray u nicmeeyay waajibaadkiisa inuu ka tago inuu ka xishoodo ma ku dhiire karo waxaan allah xarimay marka la yiraahdo muumin kuma dhiira karo wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyar wa xishood laawi qofka ku dhiiranaya soo ma jeedid marka xishoodka laga siibo waa markaas markuu qofku dhiiranayo waa markaas marka wiilashu isqaawinayaan dabagaabka qaadanayaan waa markaas marka gabdhihii xijaabka ay dhigayaan waa markaas marka gabdhihii hoteelada inta tagaan wiilal ajnabi isla sawirayaan oo hoteelada laba u taagayeen isku sawirayaan waa marka xishood ku dhinto markuu wiilku gaal uu soo arkay sidiisa madaxa uu soo xiirana ee uu ummadda dhexmara asagoo dabagaab leena balad muslina dhexdiisa uu ku socona waa markaas marka gabadha uu mootada iyo bajaajta ku wadanayo 6 saac oo habeenimo wiil islaameed ajnabi ah waa marka waliba ay murxaan oo gaangastarada noqdaan markay bilaabayaan waxa weeyaan dadkana waa iska qarinayaan hoosna xumaanta u socone soo ma jeedid wiilka gabadha kulligood gabadhu xijaabkeeday ku baxee markay fogaato oo saalixiintii yaqiinay ka fogaato ay bacgalinayda laakiin marka dambe toosay u dhiiranayaan wax walbayna ku dhiiranayaan saas daraadeed mas'alada xayaagu waa khuluqi islaamka ma ahan dhaqan Soomaali oo Soomaalida u gaar ah waa dhaqan muslim Soomaaliduna islaamnimada ay ka kasbatay ay waajib tahay qof kasta oo muslima inuu ilaashado qof kasta muslim ah uu caruurtiisa baro macallin kastana ardada uu gacanta ku hayo uu baro lagu tarbiyeeyo la ogaado waa khuluqi islaamka nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam min saxaabi ayaa weydiiyay rasuulka Allah awradeen maxaan kala nimaadna maxaan ka tagaynaa markaasuu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ihfad awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka awradaada ilaali ha isqaawin gabadha jirkeedo dhan waa awro wiilkana xudunta iyo labada jilib inta u dhaxayda waa awro awradaada qofna yu arag illa xaaskaaga maahane ama adoontaada maahane saas uu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ninka waxa weeyaan awradiisa qof kale ma arki karo rag inay arkaan ma banaana dumar inay arkaan ma banaana xaaskiisa iyo adoontiisa gabadhana awradeeda ninkeeda arki karo soo ma jeedid in kasto ay xawradu xuduud leedahay oo awrada waxa weeyaan xuduud ay leedahay gabadha oo kaleeto dadka maxaarimteeda walaalkii la dhashay aabaheed waxa weeyaan marka caadiga oo gabadhu guriga ay ku joogto oo madaxeedii u banaayo gacmihii wax ka banaayo lagu banaayo waa arki karaan dib male intaas oo waxay leedahay xuduud kala sareyda awradii laakiin awradiyo idil gabadha ninkeeda kaliya arki kara ninka xuduntiisa iyo labada jiribna xaaskiisa arki karta xaalad daruura ah wadaysan imaan wuxuu ku yiri saxaabigii Muawiya ibn Hayduha wuxuu ku yiri rasuulka Allah ninku haduu rag la joogo ka waran oo meesha bad dumar joogin nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam in istada'ta alla yaraha ahad faf'al hadad ba awoodo awradaada qof inuu san arag saas yeel haddii xaalad daruura ah timaad waa gaar xanuun ay dhaqtaraayid waa la qala waa gaar laakiin adoo awooda min islaamiyadu san awradaada arag shiribkaaga iyo xuduntaada inta u dhaxayda waa awro ara allayay kugu dhixin iimaan la waxa noqon qof walba marka waa inaan hal maado ogaana ummadan cadowga ilaahay oo gaalada ah riyo ay ku riyoonayeen muddo dheer amaanta xaqiiqo iyo ficil ku noqotay waxana weeyaan internetkaas waa barahaas bulshada waa shaashadahaas shaydaanku gacanta hayo waa seef afaysan oo shaydaan daabka hayo ru'yadoodii u xaqiiqowday oo ah guri kasto muslim inuu joogo shaydaan ka masaxa oo ka tira iimaanka
حشودك كدله اخلاق اللوميه معلنك مشاركيسنا قويسك مسلمك او بخيو رؤيتي او حقيقودي وامخه وموبايلك وينو غعنتا كو هايدو وشاشدا صرتاده تالا لعقتوده ما يهودا بخيدا ادا بخشا يو فسهاديه يو اخلاق كدله يو ايمان لاو كدغا واديغا مشاركنا ادا بخينيه عدوغا نوعاسا ان درين ولهان دد اسبيبي خير ملهيان الاسبيبي ايمان كان الى شنو اندها ان الى شنو حشود كان الى شنو ان ديب سو عشنو اخلاق دينا دد دداليا الهي وا نصريس الهي نوغ نصريو كلمتيدا waxaan ku soo qatibaya xishoodku waa khuluqa islaam oo diimaha dhan uga duway iyo dhaqamada dhan aan saas u ilaashano wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad